bariga dhexe weli ma bogsan inkastoo xabad joojin laga gaaray 25kii bishii Juun aynu soo dhaafnay dagaal 12 maalmood socday u dhaxeeyay Iiraan iyo Israa'iil haddana dhabta dhulka taalla waa mid ka duwan xogaha sirdoon ee hadda soo baxay waxay iftiiminayaan in Iiraan aysan nasan balse ay u gudubtay wejiga labaad mid aamusnaana balse istaraatiiji ah warar lagu faafiyay wargeyska Middle East Eye ayaa lagu xaqiijiyay in Iiraan ay si qarsoodi ah uga heshay Shiinaha nidaamyad difaac oo casri ah oo noocoodu yahay HQ-9B nidaamkaas oo leh awood la mid ah nidaamka difaaca Ruushku soo saaro ee S-400 xogta sirdoon oo laga helay ilaa Carabeed iyo kuwa Yurub ayaa tilmaamaya in heshiisku ahaa mid si qarsoodi ah loo meelmariyay iyadoo aan wax lacag cadaan la bixin balse lagu badashay shidaal taasoo suuro gelisay in Iiraan ay hesho hub si weyn ay ugu baahnayd xilli ay weli ka soo kabanayso qasaarihii ka soo gaaray dagaalkii 12 maalmood socday inta dagaalka uu socday waxa la arkay baahida ugu weyn ee Iiraan hortaala inay tahay inaysan lahayn nidaamyo difaac oo awood u leh inay ka hortagaan weerarada ay la kulantay isla markii dagaalka la joojiyay Iiraan waxay qaaday talaabo dhab ah waxay aaday Shiinaha waxayna la soo wareegtay nidaamyada difaaca casriga kuwaas oo tijaabadoodii mar dhow aan aragnay markaas oo ahayd intuu socday iska horimaadkii Hindiya iyo Pakistan Hindiya oo adeegsanaysa tiknoolajiyadda reer galbeedka ee Israa'iil waxa ay ka gudbi weyday nidaamka HQ-9 hadda si la mid ah Iiraan oo aragtay waxa ay Hindiya kala kulantay nidaamkan waxay si degdeg ah kala soo wareegtay Shiinaha Shiinuhu si dhab ah ayuu u caawiyay Iiraan wuxuuna ka hortagay in Iiraan ay la kulanto cunaqabatayn isla markaana ay caqabad dhaqaale la kulanto taa beddelkeeda wuxuu ka qaatay shidaal wuxuuna ku wareejiyay nidaamkan oo aad ugu baahnayd haddaba muxuu yahay nidaamkan HQ-9 ee Iiraan ku kalifay dagaal 12 maalmood kadib inay dhol cadayso nidaamka difaaca HQ-9 waa nooc casri ah oo lagu dhisay tiknoolajiyad la mid ah awoodda uu leeyahay nidaamka difaaca ee Ruushka ee S-400 balse nidaamkan ayaa la aaminsan yahay inuu ka hormarsan yahay ee Shiinaha soo saaro waxaana farsameeyay shirkadda Shiinaha ee CBMI waxaana lagu tilmaamaa nidaam difaac adag tahay in laga dhuunto wuxuuna bartilmaameedsan karaa diyaaradaha dagaalka oo ay ku jiraan kuwa casriga ah ee reer galbeedka gantaalada cruise-ka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn wuxuu sidoo kale ka hortagi karaa weerarada dhinaca elektarooniga ee hawada wuxuu leeyahay nidaamka difaac xawaare Mach 4.2 wuxuu gaari karaa masaafo dhan 260 kilomitir oo uga hortagi karaa khatar kasta isagoo ku shaqaynaya isla markaana gaari kara masaafo dheer oo hawada sare ah oo 30 kilomitir marka lagu daro nidaamka raadarka casriga wuxuu nidaamkan awood u leeyahay in uu hal mar la tacaalo oo ka hortago dhowr weerar oo bartilmaameedyo kala duwan ka dhacaya Iiraan horey waxay u haysatay nidaamyo gudaha ay ku sameysay difaac Bafaar 373 Khardad iyo Sayaad 4 balse HQ-9B wuxuu xoojinayaa awoodda Iiraan ee lagu difaacay saldhigyada istaraatiijiga gaar ahaan marka loo eego weerarada ay Israa'iil ku qaadi karto sirta ku duugan heshiiskan shidaal lagu badashay nidaam difaac warbixinta uu wargeyska Middle East Eye baahiyay waxa lagu sheegay in Iiraan aysan heshiiskan ku bixin wax lacag toos ah balse ay u adeegsatay shidaal iyadoo gacan ka geysatay xaqiiqada ah in Shiinuhu yahay dal si gaar ah ugu xiran iibka shidaalka Iiraan in ka badan 90% shidaalka Iiraanna waxa iibsada Shiinaha sirdoonka uu wargeyskan soo xigtay waxay sheegeen in nidaamkan difaaca Shiinaha uu si degdeg ah u gaarsiiyay Iiraan in la dejiyay xilli habeen ah oo la gaarsiiyay gudaha Iiraan waxaana howlgalkiisa keenista iyo isku xirkiisaba ka qayb qaatay injineero Shiinaha u dhashay taasi oo ka dhigan in Iiraan ay si dhaqso leh isku diyaarinayso talaabadani waxay ka turjumaysaa istaraatiijiyad cusub oo Iiraan u adeegsanayso hub helideeda ka baxsashada cunaqabataynta Mareykanka iyadoo lagu xadgudbin heshiisyada caalamiga ee cad taa beddelkeeda Shiinuhu abaal ayuu gelinayaa Iiraan wuxuu talaabadan sidoo kale ku soo bandhigay inuu si aamusnaano isugu fidinayo bariga dhexe ma ahna oo kaliya saaxiib dhaqaale balse hadda wuxuu noqday mid ciidan iyo istaraatiijiyad la jaan qaadaya isagoo taageeraya Tehran marka laga yimaado iibka nidaamka difaac ee HQ-9B wax walbana uga qiimo badnaa inay heshay Iiraan Beijing waxay qayb ka tahay tababarada military ee Iiraan Ruushka iyo Pakistan waxay Iiraan ka taageeraysaa sahayda kiimikooyinka gantaalka waxay la wadaagaysaa xog muhiim oo istaraatiiji oo ku saabsan difaaca cirka inta oo kaliya ma ahan laf dhabar ayuu Shiinaha u noqday Iiraan wuxuuna gacan ka siinayaa inay la socoto dhaqdhaqaaqyada hawada sare isagoo la wadaagaya xogaha dayax gacmeedyada markan
waa baahidii Iran oo Shiinaha u tirayo. Tani waxay u muuqataa in Shiinuhu doonayo in Iran ka dhigo xulafadiisa istiraatiijiga muhiimka ah oo uu kaga adkaado saamaynta Mareykanka ee gobolka Bariga Dhexe. Shiinuhu mar walba wuxuu u fekeraa in gacmihiisu uusan dhiig ku daadin, balse uu gacmo kale adeegsado. Tani military ahaan waxay noqonaysaa waa in aan daciifiyo cadowgayga, laakiin ma ahan kan ka hortagaya aniga. Waxaan doonayaa aniga oon dhib la kulmin khasaarana aysan gaarin, haddana inaan daawado cadowgayga oo burburaya. Si taasi u dhacdo, waa inaan dhabarka ay ku tiirsan yihiin u noqdaa dhinac kasta oo ka hortagaya cadowgayga. Shiinuhuna wax la mid ah ayuu hadda Iran ku soo bandhigayaa. Wuxuu doonayaa Iran inuu ka dhigo quwad. Mar hore qof walba ayaa markhaati ka noqday markii la arkay Pakistan oo waqti kooban kaga adkaanaysa Hindiyana 10 sano waxay ku mashquulsaneed inay noqoto awood, laakiin wax ka yar 24 saac awooddaasi oo dhan dhulka ayaa lagu qabay. Waxaa laga soo riday diyaaradaha casriga ah ee reer galbeedku siiyeen, gantaaladoodiina waxay noqdeen kuwo burburay. Ilaa saraakiisha sare Hindiya ku cawdeen, waxaana burburiyey Shiinaha. Waxayna Pakistan la socotay talaabo kasta oo qaadaynay. Meel kasta oo aan joognayna dayax gacmeedka Shiinaha ayaana dhinac socday. Taasina waxay ka dhigtay si aamusnaanayna Pakistan nooga adkaato. Waana markii ugu horreysay taariikhda la arkay Hindiya oo si cad u sheegaysa in Pakistan ay ka adkaatay. Tallaabooyinka Shiinaha waxay cabsi ku beerayaan reer galbeedka oo arkaya diyaargarow iyo tallaabooyin qarsoodi ah oo qorshaysan. Inkastoo aysan jirin warar rasmi ah oo ka soo baxa Washington ama Tel Aviv, haddana falanqeeyaasha sirdoonka reer galbeedka waxay sheegayaan inay Israel si weyn uga walacsan tahay HQ-9B inuu u gacan galay Iran, sababtoo ah wuxuu xadidayaa howlgalladeeda cirka. Waxaana dhici kara duulaan kale oo Israel isku daydo inay ku qaado Iran in wax ka duwan dagaalkii 12 maalmood socday inay kala kulanto dagaalkaas, gaar ahaan diyaaradaha F-35 oo awoodda ugu sarreysay hawada ee Israel iyo awooddii dhibaatada iyo dhungalka ku noqotay Iranba in hadda ay la kulmaan iska caabin xoogan, maadaama nidaamkan HQ-9 la aaminsan yahay inuu leeyahay awood uga hortago weerarada ama duqeymaha ay fulinayaan diyaaradaha F-35 ee Mareykanku uu soo saaro. Mareykanku dhinaciisa wuxuu dareemayaa in nidaamkan cusub ay weeqayaan awooddiisa laga caburin karo barnaamijka gantaalada Iran ama lagu xakamayn karo taageerada ay siiso Iran, Yemen iyo dhaqaaqyada kale ee ku sugan Bariga Dhexe. Waxaa la saadaalinayaa in Mareykanku cadaadis diblomaasiyadeed saari karo Shiinaha haddii uu xaqiijiyo in nidaamkan si dhab ah u gaaray gacanta Iran. Sidoo kale waxaa suurgal ah inay Israel qorshayso weeraro sirdoon oo lagu beegsan karo nidaamyadan difaacay hadda la sheegay xilli habeen ah hab qarsoodi ah in lagu gaarsiiyey Iran ma difaacayda ayay hagaajinaysaa mise waxay isku diyaarinaysaa dagaal cusub? Iran waxay si dhab ah u muujinaysaa mid aan rumaysnayn xabad joojintii dagaalka 12 maalmood. Waxay sii kordhinaysaa awooddeeda cirka, waxayna isku xiraysaa nidaamyada Ruushka ee S-300 ee horey u haysatay, kuwa gudaha ama Iran ay soo saartay difaaca ee Bafar 373 ee Khordad, iyo hadda oo Shiinaha u gacan geliyay mid ka mid ah nidaamyada ugu casrisan ee difaac waa HQ-9B. Ujeeddadu waa mid cad, ma doonaysa Iran in mar kale dunida ay aragto diyaaradaha Israel oo hawada Iran u degan sida gurigooda fulinayana weeraro. Taa beddelkeeda Iran waxay doonaysaa abuuris difaac isku xiran oo adag oo aan laga gudbi karin. Waxaa la rumaysan yahay in nidaamyadan ay Iran u diyaarinayso xarumo sir ah iyadoo adeegsanaysa tiknoolajiyada dhulka lagu qariyo, taas oo ay adag tahay in la ogaado xataa iyadoo la adeegsanayo dayax gacmeed. Dhinaca siyaasadda gudaha hoggaanka Iran waxay shacabka tusayaan inay Iran ka baxday wejigii liitay, ayna u diyaarsan tahay inay la tartanto quwadaha waaweyn, taasoo sare u qaadaysa kalsoonida shacabka kadib dhaawacyadii ka dhashay weerarkii Israel. Inkastoo xabad joojintii 24 Juun ay tahay dhacdo la taaban karo, haddana xogaha cusub waxay muujinayaan in Tehran aysan u arkin in colaaddii ay dhammaatay. Waxay u muuqataa in Iran ay isku diyaarinayso wejiga labaad ee dagaal, mid aan ku koobnaan doonin rasaas la isdhaafsado, balse ay ka buuxaan xogo sirdoon, hub qarsoon iyo is-aruursi difaac. Dhanka kale, Shiinuhu wuxuu muujiyay inuusan ahayn saaxiib ganacsi oo kaliya, balse uu diyaar u yahay inuu Tehran garab istaago dhinaca ammaanka, hubka iyo sirdoonka, taasoo laga yaabo in Bariga Dhexe ay geliso wejigii ugu halista sarreeyay oo dagaal cusub bilaabi kara. Iyadoo Iran iyo Israel isku dhagan yihiin, Mareykankuna culays diblomaasiyadeed istiraatiijiyadeed ee military uu sii kordhinayo. Haatan aqalka cad iyo Washingtonba waxaa ku dhammaaday kulamo ay lahaayeen Netanyahu iyo Trump. Qodobka ugu culusna wuxuu ahaa Iran. Sida ay u aragto Iran inuusan dagaalkii dhammaan, ayaa Israel iyo Mareykanku isgarabsanayeen waxay u arkaan
inay howle qabyo ka tahay. Waa dagaal aamusan balse qaraxa uu dhici karo mar kale.